dhalinyarada degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag ayaa maanta ka qayb qaatay aqalka loo dhisayo madaxweynihii dhawaan xilka ka degay ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waana kuwan iyagoo markaasi lacagtii ay haatan ay kaga qayb qaadan lahaayeen iyagoon cidna u sheegin lacagtu inta ay dhan tahay ku diraya akoonkii markaasi looga waday ololaha anuu joogo magaalada Ceelbu madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo guriga loo dhisayo oo baan rabaa inaan ka qayb qaato cid kasta oo Soomaaliyeedna muwaadin ah ka qayb qaato anuu Ceelbu jooga baan u dirayaa lacag bulshada reer Ceelbuna akoonkii deeshashadaas wada saaran yahay ha wada direen sidaas aniguna haddeeraan gelinaya saacada aad u wareysanaysid baan gelinaya marka aan leeyahay bulshooy allaga qayb qaato قاعدني يا قصدي قالوا لي من الحين وري محمد عبد الله فرماجو أودري أكون كساد بدري madaxweynaha qasriga loogu dhisayay balse bashruud ma sheegayo lacagtaas intay noqonayso waa sadaqada waxa yiriyaan gacantaada bidigta iyo bidixdiyeys ogaan marka sidaa darteed lacagtii waan dirayaa iminkan ku shubaya radii ugu horeysay ee si xilqaanta qasriga haatan loo dhisayo madaxweynihii hore ee xilka ka degay dhawaan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay dhalinyarada degmada Ceelbe gobolka Sanaag ay markaasi ay akoonka ololaha dhismaha aqalka madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo loogu dhisayo ay kaga qayb qaataan iyagoo ku diraya akoonka galay in lacagta lagu soo ururiyo dadka jooga daafaha caalamka ee Soomaaliyeed waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Ceelbe ee gobolka Sanaag.